تارشان بشانيتو مرايتها ساعة شنت ساعة يو سدح دقيقة dadku waxay saameyn covid-19 oo county Mandera ayaa telefoon ka helay isbitaalada Mandera dadkaasayto oo sheegay laba ruux oo tuugani inay arkeen sheegay kadib marka dabagal la hagaajiyay labada ruux waa soo waxa xalligay meeshii isolation center isbitaalka referral Mandera sidoo kale laba dhakhtar oo dadkii u adeegayso isbitaalkii joogtay ayagana waa soo qabanay waxa la geeyay ayagana Mandera County Referral Center dadkii dahay dhiig ayaa laga qaaday waxa loo diray Nairobi si baaritaan loogu sameeyay in cudurkaasayto ay qabanayeen labada ruux oo ku tuumayay cudurkaasayto oo ka imaaday Kilifi kadib indana soo martay Nairobi ku soo safreen baas قبل لا نيروبي وجاء أمين غاريسا وجير إلى منديرا وعنينا قاعدين نادك إلهيت إن لو أركي قدرك كوفيد 19 وحنو باغينا دكي كوسو سفري باس كاسيتو باس وصل مكة باس كوسو سفري مالتي ثلاثة مكة هيد شارد سودوني كو بشي أفراد هنا يصوب بهيان وقتلان مل الله نشوف دو و حاول عفبات أما هاي نفعان طود عايز جريان كارنتاين سي أي أفرت لاتين يو كوج بري أو لو ترجع أول رستان هم بقى إذا تكاسيتو بريان كوه هقول كذا كوه لاتين بري أيقون إننا عن أي استحقن أما استل الله استل كودو أي أذان سيدو كلوتو كاونتي المنديرا waxay dabagal ku hagaajinaysaa cid alla iyo cid labada ruux shakhsi ay xiriir ay lahaadeen ay yeesheen ilaa ay hadda gurigii ay dadkaas kusoo degeen iyo dadkii ay xiriir yeesheen 14 ruux ayaa quarantine la gelin oo meel lagu hayaa taasoo baaritaan lagu hagaajinayo ayagana dhiigooda la qaadayo dibna Nairobi loo qaadayo oo la soo celinaayo taas marka waxay cabsi badan keenaysaa cabsida badeed oo jirtay in cudurkii marka maror waa laga marnaa oo Mandera la joogo la isku gudbin kara shakhsi kala soo gudbin kara cudurkaani to sidaan sheegnay dabaysha laga qaadi kara asaba la istaabto labada waa laga qaadi kara marka cabsidii marka aad iyo aad ay kordhaysaa waxaan garab taaganahay go'aankii uu madaxweynaha Kenya Excellency President Uhuru Kenyatta uu sheegay Nairobi iyo Coast Mombasa Kilifi Kwale in la xir quarantine la geliyo baadi aan laga soo bixin taasoo laga caawinaysa hortaga cudurkaani waxaa sidoo kale madaxweynuhu sheegay in diyaaradaha indana ay dhaqaaqi karin oo u soo gudbi karin ka soo bixi karin Nairobi mas'ala Mandera taasoo saameyn fara badan ugu lahaanaysa hadii aan ahnay dadka reer Mandera sababtoo ah qofka markii dhiiggiisa la qaado waxaa loo dirayaa Nairobi ilaa ay 4 beri meelaha sayto ay qaadaysa kadib ayaa soo celinayaan jid taas marka waxay noqonaysaa dad badan inay waqti dheer ay qaadato baaritaanka ay waqti dheer ay qaadato waxaan ka codsanaynaa wasiirka caafimaadka Taikaagwe in Kemri uu xarun ugu furo county Mandera si baaritaan looga hagaajiyo county Mandera cudurrada sayto waxaan rabnaa inaan ku